بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال meelo baad inaga daawanaysaan kuna soo dhawaada warka telefishinka Royal oo idinkaga imaanayo xaruntiisa dhexe aan ku leenahay magaalada Muqdisho warka waxaan la socodsiin doonaa intuu hawada ku jiro aniga Cabdiraxmaan Sida Xasan Cabdiraxmaan Talante madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo fadhiya Soomaaliya mudane James ayaa ugu hambalyeeyay xilka dhawaan loo soo magacaabay agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdinuur Maxamed Axmed ayaana ka warbixinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu maanta halkan Villa Soomaaliya wada hadallo kula yeeshay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya mudane James Iswan wada hadallada dhaxmaray madaxweynaha iyo mudane James Iswan waxay ahaayeen runtii kuwo miro dhal ah oo diiradda lagu saaray sidii xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya Soomaaliya ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen dawlad dhisidda Soomaaliya si loo sii dardargeliyo horumarka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku tallaabsatay labadii sano iyo xogaagii uu shaqeynayay maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii waxaa horumar muuqda laga gaaray dhinacyada amniga kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta hay'adaha dawladda waxaan rajaynaynaa in xafiiska UNSOM iyo ergeyga cusub ee mudane James Iswan inay runtii kaalin ka geystaan sidii dawladda federaalka Soomaaliya ay u xaqiijin lahayd hadafyada u yaala